بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وإذن سلام على دمان سيدتين حالدين عفمتكن إن عفمت قبتنا رجينا جنة كان قداونيسين هو حال الأوفيشيال جانل ولا شيء من حيدين وطاء. وإذن سلام يا مان ونكسر إذن لي هاي ظهرنا ونكسر عصر ونكسر عشاء ونكسر مغرب ونكسر كل شيء ونكسر إن شاء الله. الحمد لله ما شاء الله بأجوبتي إلى سبحانه وتعالى إذن كحفتي ومديد الصوماليات ولا لهيج مسلمين تordhan dadka soo falcelinaya dhahayo walaalahayga walaal waay almuuminiina iqwa muuminiinta dhan waa walaalo dadka muslimiinta waa kuwa walaalaha ee dadka fahansan ee qalbigooda dhintay qalbiga wanaagsaneen oo dhahayo dadka kelmad tayyib ku hadlo ee u soo falcelinaya dhahayo maxaa la dhihi jiray walaalahayga maanta oo dhan maxaa ugu haysa kelmada tayyibka ah waa sadaqa ay ku tahay marka insha Allah ta'ala waxa idin leeyahay idin fahansiin taas waa mid iga ah waana insha Allah dadka qalbigooda maxaa la dhihi jiray xogaa yar qalabsan yahay ma sha Allah tabaarakallah alxamdulillah subhanahu wa ta'ala soo hadiyeeyo inta qalbigeeda qalabsan yahay ama qofka hadlaaya hadalkiisa dabagala hadalka ila dabagalo yani wax laga wanaagsan yahay waaye ma sha Allah tabaarakallah marka Allah idin xadiyo walaalihii qaaliga soo dhawaad idin leeyahay janaka daga daawad hore idin ku sheego waxa official jaraal waxba idin ma wada maanta waxa la idin wada sheeko caadi iska insha Allah ta'ala ragga iyo dumarka matalan gabdhahaneeti Soomaaliyeed ama ummadda dhan gabdhaha ummadda muslimiinta oo dhan waxay cabanayaan mar walba qof walba wuxuu leeyahay sadoo ka shakeeya qof walba ninka dooyaha deenaagta noqoto gabaryahay adiga wiilkan maxaa la dhihi jiray ku guursaday adimaanan dhalin wiilyo adina gabadhan adimaanan dhalin asxaabay leedahay badan ayaa la dhashtay qaraabay leedahay walaal ay leedahay wax walba ay leedahay gabadhana saasoo kale wiilkana saasoo kale aan dhahe wuxuu leeyahay asxaab qaraab inta adigu soo guursanad badan oo lahaayay marka way soo noqotay jaanisna maanu u heenin markii hore marka alxamdulillah horta aan meel sadoo ma aan noqonin laakiin insha Allah waa rajeynaa noqdo sadoo fiican oo wanaagsan in aan noqdo wax walba lagu dhicista horta wanaagsan maxaa la dhihi jiray sadoo xunna waa jirtaa sadoo wanaag la mahma kaan maba xumaatabo maadaama ay tahay wiilka ku qabo hooyadiis ama gabadha ay qabtid hooyadeed ama ay tahay aborт lagama dacwoodo lama dhaho sadooha ay xumeeyay laakiin waxa mar walba soo noqoto in sadooyaasha laga cawado waxba ha ka cawanin qof walba Ilaahay subhanahu wa ta'ala shanta farood ma jimeenin qof walbana sidii adata ma noqon karo qof walbana maxaa la dhihi jiray Ilaahay uga tala galo ayuu noqdaa sidiisaba marka alxamdulillah waxa loo baahnaa sabartid gabar yahay adiga maxaa la dhihi jiray wiilkan waxa aragtay asigoo weyn oo ma sha Allah tabaarakallah ayaa ku soo guursaday adna barda wiilyo waxa aragtay gabadha ayadoo weyn ayaa reerka soo guursatay marka labadina isfahanteen oo reerkina markaas xogaa yar shaqaaqa ay ka jirto ama idin fahmi waayo waxa loo baahan labadiinaba ina dhexdhexaadisiin reerka oo noqotin dad dhexdhexaadiya ee wanaaga faro ina aan noqotin idinka Subhanahu wa ta'ala horta ummadiisa ha wanaajiyo maxaa la dhihi jiray gabdhahan waxa idin leeyahay waalidka waa in la ixtiraamaa ninkaaga hooyadiis ama abiis waa ina ixtiraamtaa ma sha Allah tabaarakallah wiilyo adan sidoo kale ina hooyadeed iyo aabaheeda ixtiraamtid wax loo baahan yahay hadaa wanaag sameysatid adoo wanaagaas barito ku anfaca hadii aa wanaag sameeysan kulay bari aday kugu soo noqonaysa waayo adna waa noqon kartaa ina sadoo noqotid amba oo sadoo noqotid wiilkaaga oo naag ku soo guursado ama gabadhaada la guursado labada kala bad waa noqon kartaa laakiin labadiiba oo wiilkii gabadhii waxaan sheegay inay idin ku soo noqonaysa hadii aa macnaha gabadhii aa falxum sameysatid ama wiilka hooyadiis iyo dadkiisa isku dirtid in aad kugu soo noqonayso wiilyo aad sidoo kale labadiina insha Allah ta'ala labada qayb oo u hadlaaya insha Allah marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu raali ka yahay Allahna horta nagu hanuuniyo toobada iyo tawxiidka Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu hanuuniyo taqwadana Allah nagu hanuuniyo wax walba qaan ku Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu hanuuniyo marka la iska daayo yani wararka ay tabshiisha iyo dadka maxaa la dhigi inta la iska keeno ma هو qofka bini aadamka wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo siiyo hadiye oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyo waa wanaag oo Ilaahay qofka siiyo hadoo qofka Ilaahay wanaag siinin oo waligiis alihiisba ma wanaagsanaana hadoo Ilaahay siin waligiis alihiisba wanaagsanaanaya marka ku wanaagsan ee qadariya Allah naga dhigo waalidiinteena iyo waalidiinta nasoo mutayta ama waalidiinta ragana qaw waalidiintooda ku wanaaji Ilaahay subhanahu wa ta'ala naga dhigo marka gabdhaha sidoodaba laga soo cawda horta wiilasha badan laga ma soo cawda laakiin gabdhaha laga soo cawda inay sadooyaasha wanaajineenin ee tixun dhaqmaan oo mashaakilka dhex sameeyaan xataa waxa maqlaysaa gabar sadooda dishay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka magan galnay dhiigeen in la gal dhiig muslimna aan galno marka walaalayaal waxa loo fiican in lagu baraarujiyo ummadeena ee gabdhaheena isku baraarujiyaan in dadka wanaag ula dhaqmaan ee reerka aan wiilka ka dhashtay ama hooyadiis ama aabihiis ay aad ku wanaajiyaan marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrkana wada waafiq
ilaahay khayrkana waafaji sida idinku sheego mar walba in aan duceysatid wanaagsan afkaagan wax khayr oo kasoo baxo wax xumaanta ma wanaagsana marba samada furan tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kullu kulmi karaa adigoo macnaa isdheheynin qoftan ducada badan qof waayeel aha ama qof maxaa la dhihi jiray ayada dhanba maanta oo dhan ku heysasaan saan qofku inuu duceysto ilaahay subxaanahu wa tacaala baridiisa badwa wanaag iyo maxaa la dhihi jiray intaasba maasha allah tabaarakallah qofku ilaahay ku hanuuniyo maanta oo dhan afkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku xuso oo ku xasuusto amba uu duceysto maxaa la dhihi jiray kasoo saara ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka qalabsan wuuna qalansan yahay yacni qalbigiisa si nooc kale uba asiga u shaqeeyaaba marka intaas maanta idinku soo talagalay inaan idinku si dheeraadana ma jecli videogu halhaas oo kaliya ka hadlay waa badan oo ku nooga badan oo hadda aan hadlay intaas oo hadlay kasta yarista waa banooga 5 daqiiqo ama 6 daqiiqo marka allah musta'an ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkan wada waafaji kulligeen walaha qaaliga aan duceysana isku duceeyna ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu taqoodina sax idoon ka dhigane waa mid adimeel ku yaalo beer abuuratay waaye sisin ama galeey ama digir waxa aad abuuranaysid maanta aad beeranaysid waaye ee beritan ku anfici doono gabadhiga i daawanayso marka waxaan idin leeyahay sodoyaasha cawashadooda way badatay gabdhahan cawashadooda way badatay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo meesha xumaanta ka socoto laakiin gabadhii waadinteeda soo wanaajisa ayaa wanaajisa sadoohda sadoohay adna waxaan ku leeyahay gabadhaaniyatay wiilkaaga qabo ixtiraam maasha allah tabaaraka ayna ku ixtiraamaysa awlan adiga bilow idana maasha allah tabaarakallah qalbigeedu daga adoon isdhihin wiilkaaga u danaaninin ama wiilkaada maxaa xigsanin marka waxyaabahaas ay aragto gabdhaha markaas ayaga ay burlan qamaam ama maxaa la dhihi jiray ay keenaan waxyaabo oo macnaha qofka bini'aadanka qalbigiisa dhanba aan raali ka ahayn laakiin hadda adi wanaajisid koodur aa bilaawd an waxaan jeclahay inaa koodur qofka u bilaawo weyn markaasna kadib way kula dhaqmay sida adi ula dhaqantii kula dhaqmay gabar yahay adina saa waalidiintaada ugula dhaqmi laheyd ugula dhaqan hooyadaasa u jeceshay asagana weyadiisa u jecelyaa wiilka ku qabo marka maasha allah lilah ilaahay subxaanahu wa tacaala اهدنا صراط المستقيم الله نقول توسيو قلبي جنان قلبي سليم الله كديقه من أت الله بقلب سليم وحابت بعد قلبي وناكسن أو سليم أو الدنيا ذا يدب كذا إيه محل يجي هم كذا كسليم سن إيه همان كذا أيه بت بعده كي قلبي جود وناكسن هذا أو قلبي جود سليم نقض إلهي سبحانه وتعالى هنا قديقه كل جينا بوحتنا وحايدين كسيت جايا أنا جو عارف ما تقبل إذن جو عارف ما تقبل فيديو وحنا دبنا سكول كلنا حتى جنا كله وعسيتي سبسكرايب حتى ابن اللي تشوفتين أصحابتي أنا كبرتنا حايدين لنا هي مقايد ديني هاي مشكورين waxay idin leedahay gabadhii baskiintii walaashiina aheeday subscribe-ka commentiga like insha Allah taala igu roonaada idin leeyahay insha Allah umadiina muslimiinta oo dhan ugu roonaada walaalihiina dhan ugu roonaada aniga kaligay ma aha waxa la jeclay dad qodka walaalahan ula jeclow umada dhan oo idin soo codsatay inaa subscribe u saartiin wada saaro janankayga kalis ma aha haddana waxaa idin sii tagayaa caafimaad bash iyo barwaaqo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kulmiyo